بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتو عنو ونكسن داوديال meel kasto aad naga daawanaysan daafaha dunida kuna soo dhawaada barnaamij gaar ah oo aan ku wareysanay Cabdirasaaq Maxamed Jaamac Tour oo ahaa maayirkii labaad ee magaalada Burco tan iyo intii dalkan Jamhuuriyadda Soomaaliland uu gobonimadiisa kala soo noqday dalkii ababase wixii la isku oran jiray Jamhuuriyadda Soomaaliyeed sanadii 1991 ayaa dalkan Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu si cad gobonimadiisa uga soo noqday dalkii uu la midoobay 60kii 1 Yuulyo waxaana intaas wixii ka dambeeyay magaalada Burco uu kala dambeeyay 11 maayir tan iyo 19kii ilaa iyo 2015 oo barnaamijkan duubayno haddaba Cabdirasaaq Maxamed Tour waxa xilka duqnimo ugu horeeyay Maxamuud Xaashi Cabdi oo xilligan ah wasiirka wasaaradda duulista iyo hawada dalkan Jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdirasaaq ku soo dhaw TV-ga qaranka waan dhawahay aad iyo aad u mahadsantihiin Cabdisataar iyo farsamayaqaankuba dhammaantiin TV-ga qaranka Cabdirasaaq korba lagu soo magacaabay xilkan duqnimo waxa la magacaabay 15kii September 1993 waxaan ahaa ku xigeenkaygana waxa ahaa ninka la yiraahdo Cabdi Axmed Hiirle Cabdi Burco sax oo markii dambe halkan isla mar labaad maayir ka noqday nin oday reer Burcaan ah imika la jooga ayuuna wuxuu ahaa ilaahay u naxariistay nin loo jiray Cabdullaahi Yaasiin Goodir 19 markii shirkii Boorame marka xilliga waxa madaxweyne loo doortay Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal xilkan duqnimaad xilliga haysay Maxamed Ibraahim Cigaal baa magacaabay iyo Muuse Bixi Cabdi wasiirka dakhliga ah ee ugu horeeyay xilliga Cabdirasaaq iminka baad u waqtiin dhalinyaro xilliga daadada intahay xilliga daadada runta markaan ka hadlayo 30 mid baa ka dhimaa sax sideebad ugu bareeday xilka inta leeg maadaama xaaladda nooca ahayd xaalad iska qasan horta kulligiiba bareerka iyo hibada qofka iyo hankiisu wax ilaahay iska bixiyo marka hore sax qadarkuna waxa weeyaan cagta halkii la dhigayay baa calaf wixii la cunayo labadaba rabbi baa ku caalimay qadarkuna deerku ku geeyay halka qofka gaarsiinay rag baa iyagoo 30 jir madaxweynayaal noqda sax badan oo hareeraheena iyo dhulka kala baa rag baa wasiir noqda rag baa xildhibaan noqda dhulka dhalinyaradu waa ku badan tahay casrigan dambe dawladda laakiin waxaan oran karaa raggii dhalinyarada horseedka u ahaa in dhalinyaradu xilka qaban karto aniga hortay nin da'daas oo Maxamuud Xaashi ahayn oo hortay xilka qabtay ma jirin sax jaranjarada xalad ka safushay aad gaadheeyad heer aad socoto in madaxweynaha dalku adiga da'daas oo aan dalkan ay ku yihiin min da'daas oo xilal doonta jaranjaradaas hanaankaadu fuushay dib nooc jimicsiba wardiinta taariikhda dib ugu noqday marka hore nin dhalinyaro oo Burco ku dhashay baan ahaa sax dugsiga dhexe iyo ka hoose iyo dugsiga sare waxaan kaga baxay Burco Sheikh Ibrahim Maxamuud Axmed Cali iyo Sheikh Bashiir marlabaadkii markii aan xamar tagnay waxaan galay maxad maalintii iyo maamulka waan gartay xagga jaamacada waa lagu yara ciriiriyay waqtiga sax markii dambe soo noqday halkan aan ku soo noqdayna waxaan ahaa qoladii baxday ee raacday jabhada sax halkan lagu kala cararay waan gartay intii ka dambeysay waxaan ahaa dadka maamulka ka agdhow waan shaqeynaya sax gudiyaasha ku jira xubin firfircoon odayaasha la shaqeynaysa madaxdooda dhan ay saaxiibo yihiin u diyaaraysay inuu wixii dalkiisa u qaban karayo u qabto horta dariiqan soo maray kaasoo ahaa horma xagga dawladda macalimiinta ku soo shaqeeyay maamulada ka noqdeen ku xigeen iskuulka khasabka maxay tahay in soo shaqeeyo shaqo doora oo hore waan soo qabtay shaqo ganacsi waan soo qabtay marka iyadoo khibradaydu waxoogay tahay aqoonteeduna waxoogayaan xilkan ku qaban kara ay gaarsiisan tahay ayaan hawshaa imi runtii rag saaxiibada oo Maxamuud Xaashi ku jiro oo Maxamed Kaahin ku jiro oo Cabdullaahi Biixi imaka xanuunsanaya ku jiro raggaas oo markaa madaxdii gobolka ka talinayay ayaan ugu sii gacan qabtay in hawshaa aad qabato aan qabto Cabdirasaaq waxaad bilaayay markay saa tahay waxaad sawir naga siisaa xaaladii aad maxay ahayd ku bilowday shaqadii duqnimo
والله horta xaaladda aan ku bilownay marka la yiraahdo dad walba maxaad qabatay su'aashaas ay timaado horta xaaladda aan ku bilownay waxaan anagu qabanay way noqonaysaa waan gartay ee rasmiga ahaa annaga iyo wasiirkayaga iyo madaxweynaha iyaga markii la magacaabay xafiis muu jirin waan gartay aan ka ahayn guriga madaxweynaha waan gartay qalin muu jirin buugmeed muu olin shaqaale muu jirin waa gartay xafiis iyo teeb kumbiyuutarku berigaan lagu soo bixinay xafiis iyo teebtoona ma jirin waan gartay waxay ahayd hawl aad iyo aad iyo aad u adag oo aad ka bilaabayso ibir waa gartay meel madan baa lagu taagay wax dhis baa lagu yidhi horta anigu markaan laba shaqaanu qabanno kala jaada waan gartay shaqada koobaad aanu qabanno waxay ahayd wax dhisid waa taa horta inaan wixii dhisno wax maamulidda hanoo dambaysay horta inaan wixii dhisno sax markaanu tii dhismaha ku guulaysanay ayaanu marlabaadkiina raacinay inaanu maamulidii weliba waxaan taariikh ahaan kuugu darayaa intaa dheerayd oo nala kulmay dagaal sokeeye dagaalka weli geli doonaa markii lagu soo magacaabay burco basawir guud naga siisay had burco horta aad iyo aad iyo aad u fiicnay markii lasoo magacaabay waan gartay haddii aan masiibadii ku dhici lahayn ku dhacday aanan ku dhici lahayn halkan ay maanta joogto meel kasii horumarsan ayay joogi lahayd waanta markii aanu nimi waxaanu bilownay inaanu dhismihii galno waxaanu u yeedhnay wixii shaqaalihii hore ka noolaa aanu helaynay ee milashiibiyada sax waxaanu ku darnay dhalinyaro cusub oo firfircoon waxaanu xafiiska kusii bilownay maamulka xarunta gobolka mar labaadkiina waxaanu xarun ka degnay xarunta caymiska waan gartay dowladdaas way duusaneed markaa oo mar dambe mashruuca milyan bidbiida u qornay baa naloogu dhisay sax oo markaa hore way duusaneed dabad halkaasaanu maamulkii aanu salka u dhignay markaa kamaad hawlgelin miyaa halkan maanta ay tahay xarunta dowladda hoose way duusaneedba waxaanu maamulka ku bilownay xarunta gobolka mar labaad anigu dowlad hoose ahaan waxaanu saldhig ka dhiganay caymiska sax intaa wixii ka dambeeyey magaalada burco waxaa ka dhacay dagaallo kuwaasi oo 2 sano meelaha ama ka badan la socday waa la kala qaxay markii la kala qaxay xageebaad markaa adigu ku dambeysay markii la kala qaxay run ahaan dagaalku markaan cabdi oo taariikh ahaan kuu sheego mu ahayn dagaal shicibku islaayay dagaalku waxaa dagaal siyaasadeed xilligaa uu dagaalku dhici doono dayr bay ahayd oo dadkiiba bariga wada yaalay waan gartay reerahoo dhami baldhiigii inta kashiisa yaalleen waa taa ma jirin wax colaadahoo shicibka dhex marta waa gartay dagaalku wuxuu ahaa dagaal siyaasadeed oo meelo fogfogna laga wado xamar iyo dhulal kaleba oo dabadeedba gudahana dee laga wado markaa meel fog baan noo tegin waxaanu u guurnay halkan buurtan agteena tuulada yurooba la yidhaahdo ayaanu tegnay markaa dadkii magaalada deganaana marka 3 meelood laga dhigo 2 iyo goob baa halkaa tegay waa taa dabeed markaa kamaan harin maamulkii halkii baanu kasii anba qaadnay sax ugu gudoomiye ku-xigeenka ana xaggan uu inuu ka bilaabay inuu qaban kariyo ka qabtay maamulka badankiisina waxaanu kasii anba qaadnay xagga kaneen marka yiri waad ka samaysatay xarun dowlad hoose saldhig booliis saldhigii waxbarashada aanu awood gelinay inaanu nabadgelyana dhalno cashuurtiina qaadno waa taa xaruntii sayrada aasaasno ilaa iyo burco iyo ilaa iyo meesha la yiraahdo laascaanood waxay yaalay 40 kantarool sax oo dadka lagu laayo waa taa oo mid walba ciidan aan cidi maamulno haysto waa taa wax cashuur la yiraahdo dadku ma aqoon haye haba yaraatee wax maamula oo cashuur bixiya cid hor ganacsato cashuur bixisa ma jirin sax waxaan markaa ku dadaalay nabadu way imanaysaa inaan ku leeyahay jabin dagaalka ee aanu sameeyno anagu hawshii nabad diray qabanno sax maamulkii dhisno cashuurihii sameeyno shaqaalihii sameeyno gaadiidkii sameeyno dadkan aan ma joogno wixii lagu xusaarin aan ugu adeegno oo qabanno waxna lagu yimaado nabadda cidii naga dambaysa ay ka sii anba qaato صح تينا الحمد لله رب العالمين كوكو لسني أفرتن كي كنترول إلا عين الله برعيان ونقاطنا واتا إذا كي يقول عالم كي يقول صلبان قولت لك اللي يمر موسيقى عشان لك النقطة أهم ماير صح أنا عالم كي إذا كانوا ولا عينين وكي يكتاجيت ولا توسع عين وعالم هي
inta ka sokaysa caynamana 14 istabood ayaanu ka qaadnay صح و40 nin lagu xidho berberin lagu geeyay هي 12 nin oo ciidamadii meesha deganaayo ciidamadan wadanay ay ku dhinteen si kastaba ha u dhintaan صح inta kadib waxaan suurtagelaa amniga sugnaa واضح dabadna aan cashuurtii bilowno dadana xafiisyadii dhisno gaadiidkii iibino dadkii u talino ya nadaafadooda ka shaqeyno واضح siiladii abuuro si ku meel gaara markii nabadu timina waxa lagu yimi oo aan xilki ku wareejinay markii dambe ayadaa muhayna shaqaale dhaqaale gaadiid qalabkii shaqada صح ee ku wax lagu qorayo kombiyuutarradii gaadiidkii shaqaalihii kulli maamulku iyo maamul system oo soconaya ayaan rugina bedeli ku wareejinay marka yiri wala tagay absaq dadku qoxantibi haaya idinku hadana hanaankii dawladnimadiisa dadkii ka daba tagteen sideed dadkii uga dhaadhiciseen in maxay haytay aad cashuurta qaadaan maadaama horaba cashuur ay ugu adkeydin laga qaado isla markaana dadku iska baraka ahaayeen hoygoodii iyo xoogii ay ka soo yaaceen bal arintaas sawir nooceeda naga siinaysa kulliyan hadii goor bini'aadamku meel kastuu tago qodobka koowaad uu baahan yahay waa nabadgelyo waan gartay nabadgelyaduna cashuur la'aan ma socoto waan gartay nabadgelyo cidda sugi kartaana qof iyo qabiil la isuma difaaci karo waan gartay waxa la isku difaaci karaa waa system dadka ka dhaxeeya صح systemkiina inuu helo wax ku shaqeeyo waan gartay ma suuroobayno dadka cooshaashka ku jiriya maanaan cashuureen sariibad iyo guri cashuurka maanaan qaadaynin waxa cashuurta laga qaadayo waxay businesska guud ka soconaya xoolaha nool raashinka dekeda ka soo degaya waxaas way ahaayeen wixii cashuurta laga qaadayo صح dawladda laftarkeeduna way kabaysay صح systemka shaqeeya oo buugtii siinaysay صح wixii kale loo baahday marba itaala ciidamada militariga iyo police way shaqeynayeen صح waxaan halka ka abuuro kala ciidankii booliiska dib u aasaasnay hadana صح oo markii hore kala daatay hadana dib u abuuro halka dib uga aasaasnay ilaa qaybtiisii ilaa saldhigiisii صح oo markii dambe sidii ku soo degay oo dhinacii maqnaa ku soo biiray واضح iyadoo seeski yaallo sidaan ku suurtagelinay waxaanu ka shaqeynay nabadgelyadii واضح waxaanu samaynay horumar waxaanu abuurnay xaruntii maamulka waxaanu abuurnay xaruntii booliiska waxaanu abuurnay iskuulo ku meel gaara waxaanu abuurnay haraynay sayladii صح oo agabkii aanu kasoo raray maanta uu tembarca ku dhisayay qaarkii واضح ood ku arki kartaan markaanu waxaa muujinay ninkii ganacsadaha iyo ninkii neefka watay waxay awoodeen inay ogolaadaan inay cashuurta bixiyaan صح ومركز رشقانو قبلنay qalbigi dadkaanu soo jeedinay واضح anagoo ku qanacsaneen inuu dagaalkan yahay mid dhamaanaya oo aan run ahayn waxa haraya ay tiyo dadkii noloshiisa صح hadaba aan ka markaad halka arintu marayso yiro sida laga warqabo waxa noqotay xarun ganacsi oo waliba suuqa silad xoolaha aad lagu kala iibsado waxa la sheegay in xilliga xoolaha lagu kala iibsan jiray calafado kale kiiska Afrika iyo silad joogo waxa la iskaga iibin jiray koonfurta dalka Soomaaliya gobolada dhexe Soomaaliya gobolada deegaameedka waa lagu soo hirin jiray bulsho kulmisay aad u kala duwan sidee u kasbatay in dadkaasi ay inta ka yimaadaan meelo fog ay yuro way yimaadaan xoolahoodii ku iibsadaan ugu soo hirtaan isku soo tilmaamaan waxaanu ilaalinay naftoodii hantidoodii واضح naftoodii hantidoodii ayaanu ilaalinay صح xitaa waxaanu awoodnay inaan ciidan gaara saylada u samayno واضح oo aanay suurto gelin in naftooda iyo hantidooda la farageliya واضح ka webi shabeelle ka yimid iyo ka ogaadan ka yimid iyo ka kuwan istilaya nafteeda ka tirsan mid kasta waxa aad inaanay suurtagal noqonin in qofka naftiisa iyo maalkiisa halka wax lagu yeelo واضح ugu weynaan culayska saarnay oo taas ahayd صح waayo waxaan doonaynay inay aasanto oo samaysanto qarnimadan iyo nabadan maanta ku fadhinaa واضح markaan maskaxda ku hayno kaas oo ahaa suuska iyo cudurka jira inuu wax dhamaanayo dadkuna walaalayaan aad iyo aad bay taasi mar kastaba qalbigayga ugu jirto صح markaa ta keentay in dadku yimaado in sayradu shaqayso in ganacsatadu kii bari joogay kii galbeed joogay oo halka dukaankiisa ka furo
in nin waliba rajeeyo in dhibtu dhammaato ay sidii wacnay tahay waxay ku timi nabadgelyada aanu ka shaqaynay marka sidaa tahay waxaan aad adiga iyo madaxweynihii maxamed xaaji ibraahim cigaal ee xilligaas markaa diiro madaxa ka ahayd xiriirkiina ka warstuha xiriirkii waxaan nahay madaxweynihii maayirkii haye shaqada naga dhaxaysay waata layn ministerna waan lahayn oo wasiiro badan baan la shaqeeyay muuse markii la bedelay Umar Boobaan la shaqeeyay waata oo nin odayaho aad hadduu caawi dhageysanayo aan halka ka salaamayo aad nin odaya u ahaa waata waxaan la shaqeeyay ninkii Wajih Axmed Saamir Sultaan waata oo isna nin dhaqameed karti badan oo shaqo badan qabtay uu ahaa aakhirkii ugu dambeeyay xiriiraysiinta markaan sameeyay waxaan isugu nimay Maxamed Cabdi Gaboose صح والنبضي كدبه رجع صوب ما ولا شقين صح وحول المنستر قد عادي مو شقين سي دولته إن يرى العب فربلان بقى يقصوا جل كتير وحولها أنا حلي جاني عشور كتير من شارع إن اليوم كجاد وحلوت ما معنا هنبدأ من الصماص إن أنت ما حد كله أنت ما حد كله هرت اللي واحد وحكى قاعد يصير إن الله كنترول به وانقط تطلع واحد عشورة كل سوق متشرين واضح واحد دخل يده وده زي ما حالنا من السنين تختينا حبيراته مد بدن يمد يرتونه يلقى أنه دخل يده كلها هاي متشرين واضح شقارها يجاديدك يو أمنك مركا انت على قبحيه شذا الكودية هوشود ماشي لا يقول تقال تاعي قول تقال واجب كصارنا أتكرن كرت وداو على ودمشالة ومثل خبطيلة ومثل بلة ومثل بابيلة انت عادو تيصل ديك وتبدي تقف كده عقل اللي وصوري كراينت اللي أكتر واضح مرلباتك عشور تلقاده يروح وقبر تلمامات رونا حولها وحولها وقت جالس على واحد رفضه قلها صح مركا كله حربيك وح لقوا جورا أيوة عشور لقى قاضي متشرين وانقر قلت واحد ليش يسوي كل شيء أنت صحيح هذا يقول بعد الجاهة صدق حديث أنا مشغلين ما فرتي سنة مشغلين هذا الشيء حصل بس واحد حلقة عيمنا هي يعليس كميش كتاجنا أنت وليدي هاي وأنا قاعد كيف حبيبي مكانك كفاف أنت وليدي هذا الصعب وحنا هاي نفرق جدار متهاجن حبضنا كل عايصة بدنا قبة فتشقبة وحلوبي بعض صح لكن من وحنا سوق ما سقي أنا من يوم بجنبي أنا العكة قادني ممكن دمرنا جميع موغن صح العكس اسمه غريصة وأنت إذا كشغلين ثمانية جميع موغن واضح ممكن هرنا هنتيب وربوران والقاعدة ما كان نجسوا جليس متشرين صح نجس لا يفكر يومين اسمها المحاول دغدغاغيا دغدغاغيا يجي هو حكام وحيد برعل قد شيء يصل لك وقت إن هيدها قرمي المجابين wax mucaawimooyin kale jirtay waxay keeni jireen dagaal bay dawlad keen jiray waan gartay iyo fiilin yar oo mar la siiyo dadka qaxoontiga sax oo aan isaga laftarkiisu wax macno weyn lahayn oo ku oran karin mar qura xitaa WFP da la sheegaa maalmihii la qaxayay burcab ka dabado inta dadka u timi raashin sugan maysiin sax hay'adda loo jeedo action Hungary oo Faransiis iyo qolada amsef dhakhtarka wax dawo u keeni jirtay labada qolaad ka soo agtaagi jireen waata hay'ad taxadum jirin inta wixii ka dambeeyay maxaa ku qabsoomay burcana ay soo muuqatay in saansaankiyo shirki nabaduna dhacay doonista burcad timaado burco halka xafiiskii dowladda fadhiisato wadooyadan martay horta aniga xafiiska dowladda burco وقت من يقول نغص من أنا يقول له شو قال لي بدري واضح شو ما كلام إسلام ما عليه يبغى على سوق اللي يبغى أنا قال لي بدري وانقرت لكن حاجة صممنا بدل قلت لك عشان ما في سؤال شو مقطع تروح المصمم اللي معه كاملة واضح برأي حنكبح أنا قام بقوله وكذا كذا وانقرت يكون حقين كي حقيقية كذا هاي كبح صح markii dambe aan soo galay wareejinayna burcan xilka ku wareejiyay burcan gudaheeda ay xilka wareejiyay waxaan wareejiyay maamul dhisan waxaan wareejiyay shaqaale waxaan wareejiyay gaadiid waxaan wareejiyay agabkii xafiiska waxaan fariisiyay saacada aan wareejinayo lacag dakhliga soo dhacay
انت مايركا هيد مدحوينه كحيجين وزيرو عد مسؤولين دولين يرو كوغوتي مجد سو سلبك الدولة ما لهاين وانقرت ومن العالم تمسير داخل كل شيء ميزانية من اللي بتشيله هيا سو ما تكرر تلياشي بليس كاي مني وسيرة كاي مني مدحوينهم ما يمني واضح مدحوينه كحيجين كاي وما كداه ريالك هنا أيكوين يروي وانقرت ميت كستارا سو سلبك الدولة ما لهاين ومركو صون كصون كلا يعني حكومة يوم لحظة صح سو ما تكرر ميت اللي مو يبيني مدة بوحي تليح ولا غلطة ها توين ود سؤال عن كوسو دافين دين ديب كوغو عليو markaas lagu soo magacaabay magaalada Barsaab meelahan ma ay ka arina Barsaab adna Barsaab ma baan meelkii kugu xigay Maxamed Xuseen Hawn baa Barsaab kala soo raacay halkan aan u yasax halkan aan yasax meelkii ugu horeeyay Barsaab uu lahaa haye Xuseen على حرص بقى واضح النوع السياسي ولا يقام مركي دمنا بروتوكول كمدحوينها وانقرت انا بقول برصاب كيجي برصاب حقيقي كوا انا برصاب كوا ايوه السعودي وانقرت ومرنا صوب مقعاوي وات marka ya barsabaha عبد الله علي عقا ayaa xilligaaga وزارة waxbarashada imka ka shaqeeyo macallin weyna ku xigeenkiisuna jaamac ala qorboha waat ama fi burcaa taqaana ninka saddexaadna waxaa nin barkhad la yiraahdo reer buu hadlaa ayuha صح markii dambe waxay nagalaha u kala jireen xagga Yuroobe waxa fiiskooda lahaayeen صح wixii maamul iyo dhismaha weynado ninka reer buu hadlaa markaas uu barsamiyo xogayaha gobolka صح maxamed xajbaan cigal adigoo daayar bad la soo shaqeysay maantana uu naga hooseeya xilkaasna ninku markuu xilku magacaabana ragga qaar waxay uga mahad celiyaan maanta laga qaado ragga qaarna way dhaliilaano maantaasi dhaliishiisa fagaano meelaha ka maagan laakiin adigu awood daayar bad maxamed xajbaan cigal la soo shaqeysay maxaa sababay inuu xilkii kaa qaado horta dad taqaanaayo sideedaba marka uu mucaaridad dhacdo ama qolaad dhacdo daruuri bay noqotaa marka la heshiiyo in ragii la isku bedelaa waa gartay maslaxadaas ka maarmi sax aniga maxamed xajibaan ayaa ilaahay u naxariista caawiga hoos waan isku fiicnay waan gartay daliil gaar ah ugu bedelayna ma jirin waat markuu bedelay Cali Xaaji Nuur buu igu soo diray isna caawiga hoos iyo saaxiib ahay ilaahay u naxariistay waat wuxuu u yahay shaqada doonayso ban ku diibaya soo sheegay tan waan ka qaadaya waat duruufo jira awgood sax sabab karan aniga laftarkeeduna markaa yadan u baahnaa in la bedelo waata oo sida jeegayso nin yar baan ahaa markaad wax barato la dusha ka eegto haddana dib u noqotaa aad iyo aad u qurux badan warna aad iyo aad u qurux badan waata weliba dhalinyarada waxaan kula talin lahaa marka la shaqadana xagga hoose ka soo bilaabaan baa ka wanaagsan xagga sare ka bilaabo صح inka aad baa qoladan hay'adaha iyo qolada maamulada u dedejiyaan dhalinyarada markaa iyo xagga hoose ka soo bilaabaan ayaa ka wanaagsan in xagga sare ka bilaabaan صح taas waa mid hubaalo weey marka sida aniga lagu bedelay systemka ayay ahayd markaa ma hargeysa marka lagu weeraa waraaqa istiqraad lagu dhiibay mise marka hargeysa laga siiyay waa tahay marka madaxweynuhu marka uu kuli wax codso xilkaana waan ka qaaday halkeebaad marka xabaas inuu qurqursamino ma yeelin waa tahay waxaan ku aansaday inaan ka tago waxaan lagu maqaalay in madaxweynuhu kaa codsaday in aad codsato bedelka xilka qaadistaada maadaama uu aad ku ogolaa sababtaad ku diiday inuu weydiin taas waa been waata inuu go'aansaday inuu bedelo go'aanka uu yaala oo warqadu qorantii baan tagay waata soo faham been sheegata taa ku fahmi maayo waata soo kara yaa lagu bedelay waxa lagu bedelay Maxamed Xuseen Aadan Maxamed Xuseen Aadan markii lagu bedelay waxaan lagu maqaalay
xil wareejintii diiday cabdirasaaq oo maxamed xuseen dabadeedna uu noqday dabadeedna cabasho gudbiyey inaad ciidamo hubaysatay diyaarsatay xilkii diiday hantidii qaranka diiday yaa arrintaasi ma jirtid maya oo markhaatigeedu nool baa jooga waata waa la beenaalo markhaatigiisu fogeeyaa waata xilka waxaan ku wareejiyey guriga martida ee Burco waan gartay waxaana xil wareejinta iga sameeyey maxamed cabdi gaboos xaya waata oo jooga su-aasha inay i weydiisaan waan jeclaan lahaa hadday idin suurta gasho waata ilmuudiya timiya waxaan u wareejiyey si sharaf leh oo gobonnimo leh maanta shaqaalahan anigu qoray marka laga saaro shaqaalihii hore wuxuu noqonayaa inta dowladda hoose ugu fiican buu ahaa waata ilaa haddana ugu fiican sax raggaygii iyo gaadiidkaygii iyo wixii aan agab hayay si wanaagsan baan u wareejiyey warqaddii xil wareejintana ilaa hadda waan hayaa ugu dambeyntii waad fahamtay barnaamijyaha la gudbiyeyna dhismihii aan meesha dhisay iyo hawshii badnayd ee aan qabtay oo taa cagaalba ka calacalaya unbay raggii baqdini ku dhacday waata oo is yidhaahdeen walaa ninkan deegaannimadiisuna waa yar culusta ciidankana xiriir fara badan bay leeyihiin iyo dadka meesha jooga marka malaa aqbaliba maayo in meesha laga qaado waata markaa baqdin rucdiyahoo iyagoona soo gaadhin ayaga ku dhacday bay ahayd waata gaboosana markii dambe xaalmarin buu iga siiyey sax inagii waryo ahay waxaan fikraddaanu kaa haysanay sidaad noola timi waa kala jaad waan gartay hargeysa waxaana lagu yidhi ninkaasi dagaal wax ka sokeeyuu aqbalaya ma jirto waa nin meesha qabsaday waata annaga waxaanu ku aragnaa shaqsi sharaf leh oo caadi ah oo xil wareejin wadaa waata warniyo aad iyo aad baad u mahadsantay waa kaan wala madaxu iga dhunkada ugu dambeyntii intaad xilka haysay caqabadii kugu adkeydee kaa hortimi maamulkaa ka hortimi ma xasuustaa marka laga imaado dagaaladaas iyo xaaladaha kala gedisan horta dadkaad madaxda u ahayd oo dhimanaya cabdistaaran oo maalin walba lagu keenayo inaad meydkooda aastaad qaabiltan tahay horta daa caqabad ka adag ma jirto oo qofkii aad shalay wada fadhideen iyo kii kuwa abtiga ahaya kaasoo horjeeda iyo kaa ilma abtiga ahaydeen meydkiisoo gaal lagu sida subaxii lagu keenayo horta caqabad ka xun oo qofka soo hortaagi kartaa damiir ahaan ma jirta xaalad aad iyo aad u muruga badan aadna u adag bay ahay shaqada maxaa kuugu adkaa markay timaadana kontaroolka ay ku leeyihiin hantidu sida meel martay gelina waana laga qabsan jiray gelina laga qabsan jiray kontaroolka waa aan maamuli jiray kabeereed baa kabeereed ama kambarcaba ha ahaadee sax gelina laga qabsan jiray gelinka dambena waa laga wareegi jiray ka horna laga haysan jiray sax horta duruuftan ku shaqeynayna midkaas aday ninkan aan wareegayaan hadduu doono gaari tignikaa buu wataa oo nin iska burcada waa nin burcada soo markaa markaa duruufteeda shaqo mid aad iyo aad u qallafsan ayay ahay waxaa lahayd nin xabad afkii saaran soo markaa laakiin markii dambe lacag xafiis taalaan u deekaan maayo iyaad ka mahad sheeganaysaa anigu guud ahaan raggeenu wada shaqeynayna miyaa horta guud ahaan raggeenu wada shaqeynayna madaxda dhammaantood waa ka mahad sheeganaya odayaashii guurtida ahaa ila shaqeynayeen aad iyo aad maanta badankoodii saaxiibada ahaa oo dhintay waan ka xusaayay ilaahay oo naxariista ay ka mid yihiin ninkii loola jiray xaaji waraabe uu ka mid yahay ninkii loola jiray sarabaan cabdi cumar oo ninkii aadan dheere odayga cali madooba nool xawil xaaji aadan guddida anigu ila shaqayn jirtay khaasatan ee caawin jirtay raggaas iyo rag badan oo kale marka magacoodii aanan halka ku wada xasuusan karnay ka mid ahaa raggan kulaha alaabooyin baa loo dhiibnay ka mid ahaayeen raggaasoo dhan aad iyo aad bay sharaf u lahaayeen raggii xagga dowladda iyo maamulka iga caawiyey maxamuud xaashi kow u ahaana aad iyo aad buu sharaf u lahaayeen ugu mahadnaqaya isagana waata ugu dambeyntii cabsa markaad xilkaa wareejisay mar dambaad burco ka noqotay mayor ku-xiga goormaha taariikhda taa horta waxaa ka horreysay aan galay ururkii la oran jiray asad waan gal dabeedna asad baan galay asad baan musharaxa koowaad ee burco aan noqday sax asad baan kusoo baxay waata ururkii asad la oran jiray ururada lagu reebay oo si yaroo nasiib darra lagu reebay laakiin xisbi aada u wanaagsan noqonaya urur sal ballaaran oo gobollada somaliland ka kooban noqonaya ururla maanta dadkiisa muuqdaan lahaa rag badan oo magac siyaasadda kula wanaagsan ay ku jireen ayaan ahaa waata
haddana nasiib darra waanu harnay waata laakiin anigu xubin ahaan deegaankan kusoo baxay waata marka aan deegaanka kusoo baxay marka dib jir baa maayir noqday marka dib jir idinku mataan maayirka u noqon hore ayaa xuleefay sula samaysmaya maya waata soo kale iska dusha guud iyo magaalada guud adaytinimada mooyaane aqoon hoos oo aad u weyn maamulka hortaan isula ma jirin inta ay shaqaynaysan ka waran aba soo koobiya xidhiidhkiina aad qaabka dula shaqayso labada mid qaybo dhanbu faa'iideynayo aniguna min minashiibada hore soo maray baan ahaa waata isaguna min aqoon oo xisaabiyo guud ee wasaaradda kalluumaysiga dalku ahaa oo shaqaale dawladeed soo shaqeeyo shaqada garanaya ayuu hawaan min aad u odayo aad u qiimo badan aad loo salaamaya waata marka ninka odayga ah anna si fiican buu gacansiiyay anna si fiican baan u gacansiiyay mar magaalada loo baahnayd magaalada xaaladeedu xumayd way ahayd nin walba ka markhaati furiyo dhibtii dhulka ka taagnay ugu dambeyntii waqtigoo soo ururaya cabdirasaaq yaraan baa siyaasadda kusoo gashay maantana nin weyn baati danacaaga siyaasiga iyo waxaad maanta maanku hayso aduu soo koobaya bal noo sheeg horta niman nolosha aniga siyaasadda qura kuma xidhna oo qoys ganacsataa baan kusoo koray waanta aabbahay nin ganacsato weyna ayuu ahaa iyo reerka iyaguba hanti fara badan baan lahay markii dagaalku dhacay oo noloshayda horta lugta ganacsiga kama saaro amaan hoos u wado amaan kor u ware horta noloshayda kama saaro ganacsiga waata siyaasadda xaydaankeedana kama bixin waata iminkana shaqooyin waa wadaa mar walbana bahashu dee waa sida daadka oo marna qofka korkuu joogaa marna hoostuu tagaa absolutely soo madka marna hoosta ayuu tagaa waata oo sidaa way iska leedahay iminkana ragga uun dee iminka weliba ragga da-da he shaqaynaya uun baan ka mid ahay hamigeyguna anigu dadka hamiga waalidahay ku jirana miihi waata nin hallaana miihi dee ninkaa 20 jirka maayarka ku noqday baan ahaa waa sax soo madka marka insha allah daadika meelaan dhigi ilaah baa og laakiin aan dalka u shaqeeyo diyaar baan ahay aad iyo bilmaasad aad iyo bilmaasad daawadayaal intaasi waxaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkaasi waxaa barnaamijkan duubay oo habeeyey cabdisaaq faarax cabdilaahi anoo cabdisataar sabriya baa idiin soo saaray barnaamijka xigay inta aan ku kulmi doono aan ku wareysan doono halkan idinku keeni doono duqii saddexaad ee magaalada burco oo ahaa maxamed xuseen aadan dhammaantayo nabadino